بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت هدي إلهي إن شاء الله عاو maxaan ku falanqeyn doonaa hadii Ilaahay uu qadaro dad hanti isku darsaday ama shirkad ah saddex ama laba qof meelahaas oo kaleeto oo hanti isku darsaday hadhowdi kaleeto sidee bay faa'iidada ay ganacsigooda ama waxa ay maalgashteen ay ka heleen ay u qaybsan rabaan hadii Ilaahay in sha Allah inta aan ku faaqidi doonaa ila socda hadii Ilaahay in sha Allah first halkan ka bilaabaneynaa name magaca qofka waxaan u baahanahay sidoo kale total amount oo qof walbeeta oo macnaha maalgashiga uu ku sameystay sidoo kale waxaan u baahanahay boqolkiiba intee buu qofkan maalgelintiisu ay tahay sidoo kale waxaan u baahanahay distribute amount macnaha marka waxaas ayaga ah la qaybsado qofkaas inteeba qofkaas asaga ka soo gaarayso hadii Ilaahay insha Allah qodobadaas ayaan jeexjeexi doonaa qofka koowaad ama partnerka koowaad waxaan ka dhigan doonaa Saciid bilmatalan wuxuu maalgashtay $7,000 qofka labaad waxaan ka dhigaynaa Cabdiraxmaan wuxuu isagana maalgashtaan leenahay $5,000 qofka kale oo xigana waxa waaye tusaale Maxamed isagana wuxuu maalgashtay $7,800 ayuu maalgashtay soo marka saddexdan qof maalgelinta ay sameysteen ayaan rabnaa marka inaan u qaybino marka ugu horeyso waxaan fiirinaynaa horta maalgelinta meeqay dhantahay waxaan raadinaynaa wax la yiraahdo total invest already inta markaa joogtid tusaale ahaan godkaan aad joogtid inaan isku darnaa rabnaa macnaha Saciid iyo Cabdiraxmaan iyo Maxamed hantida isku darsadeen si fudud u soo saarnaa already home kana imaanaysa hadii si ku joogin kadib waxaan leedahay halkaan ay ku qoran tahay auto sum oo ah si automatic ah inay wax isku ka darto ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaa leedahay click ayaad leedahay already waxaa aragtaa in la select gareeyay la hilaad gareeyay oo la isku daray enter ayaan leeyahay lacagta la maalgeliyay waxay gaaraysaa 19,800 ayay gaaraysaa aragtaa saan jeclahay dollarka calaamadiisa hadaysan saarnayn waa ka dhigi kartaa maadaama waxa qiimo ama dollar ay tahay already waxaan sidoo kale u baahanahay total amount wax la yiraahdo jiro oo ah waxaan 19,000 la maalgeliyay faa'iido iyo waxa dhan markii la xisaabiyo ama la isku soo dardaray waxay noqotay 45,000 markii la xisaabiyo waxay noqotay 45,000 macnaha faa'iido iyo macnaha inta markii la xisaabiyo la isku soo dardaray dhamaantood waxay noqotay lacagta dhamaanteed $45,000 so distribute amount teel qaybsanaa horta marka ugu horeysa maxaa faa'iido maxaana lafa inaan u kala saarin kartay laga baahan yahay waxaan leenahay equal 45,000 ayaa waxaan ka jaraynaa oo macnaha total amount-iga macnaha faa'iidada iyo lafii marka la isku daro ayaa waxaan ka jaraynaa total investment-iga intii la maalgeliyay ayaa ka jaraynaa waxaan leenahay enter already aragtaa ganacsigan macnaha wuxuu faa'iiday $25,000 ayuu faa'iiday $25,000 ee faa'iidada markii lafaha laga saaro sidee ayaan ugu qaybinaynaa Cabdiraxmaan Saciid iyo Maxamed aan ugu qaybinaynaa already waxaan u baahanahay percentage inaan helno marka ugu horeyso intaanan qaybta gelin inaan percentage ahaan u helno si aan percentage u sameyno waxaan leenahay equal Saciid ayaa tusaale ka qaadanaynaa Saciid wuxuu maalgashtay oo loo qaybiyay total waxa la maalgeliyay total investment-iga loo qaybiyay calaamadan B da macnaha investment-iga calaamadiisa oo B6
ama qaybta midda labaad ee qaybsamayso ayaa waxaan ka hormarinayaa calaamada dollar sign shift iyo 4 ayaa isla qabanaysaa 6 kan waxa u dhaxaysiinaysaa shift iyo 4 oo ah dollar sign kadib waxaa leedahay enter ayaa leedahay already maxaa aragtaa 35 boqolkiiba waxaa iskale ganacsiga Saciid ayaa iskale marka la aan ku celiyo sidoo kale Cabdiraxmaan oo $5,000 ah leh ayaan calaamad dul saarayaa calaamada slash ama qaybta ayaan taabanayaa kadib waxaan u qaybinayaa total investment-igi waxaan ka hormarinayaa calaamada dollar sign-ta ayaan ka hormarinayaa dhinac walbeeto ayaan ka hormarinayaa kadib waxaan leeyahay enter ayaa leeyahay boqolkiiba 25 waxaa iska leh Cabdiraxmaan ayaa ganacsiga macnaha lacagta iska leh macnaha ganacsigaas maalgelintiisa okay maxamed aan imaan marka la aan ku celiyo hadana waxaan leenahay maxamed intuu maal gashtay ayaan waxaan u qaybinayaa total investment inta macnaha 7,800 maalgeliyo waxaan u qaybinaynaa 19,800 markaan u qaybinayna marka waxaan marka walbeeto waxaan ku hormarinaynay dollar sign kadib waxaan leeyahay enter عفوا هنا boqolkiiba calaamadiisa ayaan saarayaa kadibna boqolkiiba 39 markaan isku soo total gareeyna macnaha kulli waxaan leeyahay equal ama outsum ayaan leeyahay aan ilaahda aan ka qaadatan equal outsum ayaan leeyahay already marka boqolkiiba boqol waaye marka 35 ka mid ganacsiga waxaa iska leh Saciid 25 waxaa iska leh Cabdiraxmaan 39 ka mid ganacsiga waxaa iska leh Maxamed okay saan ugu qaybinaa marka dadkan ama aan faa'iidada macnaha 25,200 oo faa'iido ah ayaan rabaa inaan u qaybiyo saddexdooda mid walba marka waxaan ku dhufanaynaa percentage-ka uu meesha ku leeyahay equal aan leeyahay waxaan ugu horeeyay Saciid oo boqolkiiba 35 waxaan ku dhufaa lacagtii la qaybsanay kadib waxaan leeyahay enter Saciid wuxuu leeyahay 8,900 soo kale aan ku celiyo mar kale 25 oo macnaha uu leeyahay Cabdiraxmaan ayaa waxaan ku dhufanayaa lacagtii la qaybsanay oo ahayd 25,200 enter ayaan leeyahay 6,300 ayuu leeyahay soo kale Maxamed ayaan u imaanay waxaan leeyahay equal Maxamed boqolkiiba 39 waxaan ku dhufanayaa 25,200 oo ah distribute career ayaan leeyahay already marka lacagta la qaybsado marka inaan ogaanaa rabnaa waxaan leenahay outsum kadib waxaan leenahay enter aragta marka inta waa iskeenta soo markii meeshaan iyo meeshaan way isleeyihiin labadaba waa 25,200 afka qalaadna macnaha hadii waxaa lagu yiraahdaa arrinkan macnaha markii loo sameynayo investment profit balance distribute qofka markuu macnaha wax maal gashto waa investment profit balance distribute oo ah macnaha maalgelintii sidii macnaha loo qaybsan lahaa balance-ga maalgelinta ayadoo aan la taabanaynin lafihii qurqurxin yar aan ku sameyno si waxay ay yara muuqdaan waxaan kulliga select gareynaya waxaan u yeelayaa border tan aan dooranayaa waxaan ka dhigayaa jaalo farteedana waxaan ka dhigayaa far soo saarayso oo ka waxaan filayaa casharkan inaad ka faa'iidaysateen wax badan oo noloshiina ka bedeli doono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.